wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada Somaliland ayaa xadhiga ka jaray dhismo laba dabaqa oo ay yeelan doonto xarunta wasaaradda maaliyadda gobolka Togdheer iyo sidoo kale xarunta rugta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska gobolka Togdheer. munaasabad loo qabtay mashaariicdani ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland, maamulka gobolka Togdheer, ka degmada Burco iyo marti sharaf kale. ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay faahfaahin ka bixiyay mashaariicdani laga hirgeliyay magaalada Burco iyo sidawayaasha laamaha dawladda ee gobolka Togdheer ee xadhiga laga jaray dhismayaashooda iyo maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco iyo mas'uuliyiin kale. waxaan idinku soo wadaaweynaa gobolka Togdheer iyo xafladan qiimaha leh boqoran ee bilan ee aan ku daafurayno xaruntan qaayaha iyo qiimaha leh oo ay hormarisay dhistay wasaaradda horumarinta maaliyadda iyadoo laga dhisay oo laga maalgeliyay miisaaniyadda qaranka uu leeyahay. waxay ka kooban yihiin qayb wasaaradda ganacsiga ay leedahay, qayb ay leedahay wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta, qayb ay leedahay rugta ganacsiga, qayb ay leeyihiin ciidanka ilaalinta cashuuraha bariga. waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa maanta haddii mas-uuliyiintii qaranka guud ahaan iyo tii gobolka oo fadhida iyadoo salama oo aanu ammaan ku badanayn lagala wareegay. alxamdulillahi rabbil caalamiin way nagu filan tahay. dawladnimadu waxay haybad yeelanaysaa marka goobaha ay ku shaqeyso ay dee muuqaal yeeshaan. laamaha dawladdu waa inay noqdaan goob adeeg lagu bixin karo. waan kugu hambalyeynaa wasiirina xafiiskii wasaaradda maaliyadda oo ka ugu badan marka dawladda hoose laga yimaado maalinle loo yimaado isla markaana ganacsatada kala duwan cashuurta ku bixiyaan inuu maanta yahay marka la soo galo meel xarun dawladeed oo qurux badan u eg. marka labaad ee kalena waan kaga mahad celinaynaa iibkii xafiiska gobolka Togdheer guud ahaan. farxad weyn bay noo tahay reer Togdheer in maanta halkan aynu ka daahfurayno horumar runtii la taaban karo. wasaaraddan maanta xafiiskeedii Burco laga dhigay saraha qiimaha badan leh la'aanteed dawladda noo shaqayn lahayd ma jirto. ilaahay baa noo keenay xarunteeda ilaah baa noo keenay. haddayna xaruntu jirin magaaladu may dhisanteen. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhismaha wanaagsan iyo bilicda wanaagsan ee ay isugu keentay wasaaradda maaliyadda. ta kale waxaan boorinayaa dadka magaalada ku dhaqan ee gobolka degan inay cashuurta si hagar la'aan u bixiyaan. wasiirka horumarinta maaliyadda Somaliland, wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska, wasiir ku-xigeenka hawlaha guud iyo guryeynta ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay mashaariicdan u leeyihiin gobolka Togdheer. munaasabadaynu isugu nimi maanta waxa weeye inaynu daahfurro xarunta wasaaradda maaliyadda ee Burco oo ah xarunta wasaaradda maaliyadda ee gobollada bariga. ujeeddada laga lahaa waxay ahayd inaanu dhisno meel ku habboon shaqada aanu qabanno, meel ku habboon shaqaalaha, meel ku habboon loo shaqeeyaha. dhismuhu wuxuu ka kooban yahay saa soo aragteen waa laba dabaq, mid hoose iyo mid sare. horumar badan baynu gaadhnay, ilaahay baynu taa uga mahad celinaynaa. xukuumadaha kala dambeeyay xisbiga kulmiye madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hadda jooga Muuse Bixina inay sameeyeen wax ku ool, waxa weeyaan horumar wax ku ool oo la taaban karo. maanta farxad iyo sharaf runtii way noo tahay inaan goobjoog ka ahaano furitaanka wasaaradaha maaliyadda, ganacsiga iyo dalxiiska iyo rugta ganacsiga. dhismaha looma dhisin in la daawado, waxaa loo dhisay in lagu shaqeeyo iyo inaan u mahad celino cashuur bixiyaasha hirgeliyay ilaahay ka sokow cashuurtiina in lagu dhisay. waxaan rajaynaynaa inay dadka maalgashada Somaliland iyo gaas ahaan Burco inay soo bataan, waayo fursad baan leedihiin. halkan waa inay noqotaa hoyga warshadaha. saan u arko shakhsiyan, saan u arko waxay noqon lahayd magaaladani hoyga warshadaha maadaama aad leedihiin baraacad iyo biyaba. haddaan nahay wasaaradda hawlaha guud, dhulka iyo guryeynta, waxaa doorkeegu yahay aanu halkan u maraynaa inaanu si rasmiya ugu wareejino wasaaradda horumarinta maaliyadda, wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsigaba mashaariic dhismayaala oo qaranka loogu shaqaynayo. cabdirashiid timir, maqal muuqa caalamiga ee Home Cable TV, Burco.